xaaladda dalka horta idinka iga xogogolsan oo wadanka joogay laakiin waxaan leeyahay khayr baan u rajaynayaa dalka markasta baan khayr baan u rajaynayaa hayga filina sidii berigii qoladii mucaaradka ahayd ayuu hadli jirtay markaan uu xilka fadhiyay inaanu hadlana hayga filina way mudana madaxweyne markii aad xilka dhameeynaysa oo waqtigaaga xil wareejinta waxa aad u sheegtay madaxweyne Siraaye in dal mida aad kaga tagtay haddana gabaabsi weeye xilkiisa هيا محاكا قبحي تاي إذن كا جوابي وركا تيشالينا إذن كا هيا تنمانتنا إذن كا هيا تيشالينا إذن كا هيا ندري تنمانتنا إذن كا هيا ده هو إذن كا جوابي تاني جاي ويدينين ظاهر يا لك هاي دفع استسراد بالحركة هاي تدخل حكومة مجرى الحلو ديمقراطية الحركة ديمقراطية واحد يجي سياسي ولا قصة بوقت قاعد كل شيء ما أنت عشان تسنوية الحين كل شيء وين معنا مدكورين ده شو بوق سياسات ده أخيرا مثل السكسون من كوريو حالات واحد مرة ساعة شفت هذا طبعا خلنا بدك الناس عارفين كان السنة تدور شو ده لبتة ده حتى كان يبي ما مرة ساعة ساعة ورقة حتى لك لا تعرف تجلس والله أنا تردد وحوي وحي وان مغلقين للشري جوال أو دقين بدحوين ولا سكيم ده حلقوه شيء waxaan ku soo waruurin lahaa waxa lagu heshiiyay la furiyo golaha guurtigu waxa sharciyo adigaaba ay ku kulmeen dad wax leedahay go'aankooda lagu golaha guurtigu aniga markay kordhinayaan sifa sharciga ay ugu kordhinayaan waan aqaanay si wadada loo marayaan waan aqaanay laakiin madaxweynuhu garan waayay madaxweyne Siraaye maanta loo madaxweyne ma tahay isaga weydiini aniga weydiinta taani weydiin waxaan ku sheegayaa doorashada baarlamaanka labada gole ee guurtiga iyo wakiiladu waxay 2/3 majority bay ku baas kariyeen mooshin sharci ka dhigaya inayna doorasho qabsoomin 2005 aniga ayaa go'aan ka qaatay wax kaliya ay banaana inaan saxeexo oo aan saxiyo waxay isku raaceen iyo inaan maxkamadda dastuuriga geeyo anoo loopholeska iyo khaladaadka ay ku jiraan dacwad ka keenaya maxkamadda dastuuriga geeya ana la xukumay doorashadina sidoo lagu galay marka jidad badan baa banaan hadii wax saxayo jidad loo maro oo sharci way jiraan فرقين dhinaca beesha caalamka baa jirta madaxweyne oo ay xubnaha xukuumadda iyo sida mucaaradka cabasho ka muujiyeen arrintaas in beesha caalamku soo farageliso Soomaaliland gudaheedii berigii hore bay ka casuumay imikana hadii soo farageliyeen dee ha aqbalaan يا حمار